Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan. Daawadayaasha qiimaha badan, horta waa ka xunnahay maalmahan wax update idinma soo siinin oo mashquul iyo hawl adduun iska jiray. Waan rajeynayaa inaa caafimaad qabtiin, anagana waan caafimaad qabnaa. Waxaan rajeynayaa mar walba guul iyo barwaaqo. Waa barnaamijkeeni tacbada tanaada. Waa rabo maanta inaan xogo isku dhafan idinka siiyo ku saabsan xoolaha iyo mataqaanaa sida loo dhaqdo iyo wax faa'iido dabcan ku jiro. Waxa noo muuqdo waa geel, lo iyo ari iyo digaag intaba kama marna. Haddii aan ku hormarno dhaqashada geel oo kale, geela barbaarintiisu waa iska yar adag tahay. Laakiin haddana wax soo saar fiican ayuu leeyahay. Marketkiisa dhowr qeyb ayaa looga faa'iidaystaa. Waa maro mataqaanaa caanihiisa ayaa aad loo isticmaalaa oo suuq fiican aad ka samayn kartid. Waa marka labaadoo maxaan ku dhahay hilbihiisa aad baa loo cunaa. Waxtar fiican aadanaha uu leeyahay marka laga hadlayo geela iyo wax ku saabsan. Marka ninkii isku dayi kara inuu dhowr neef meel ku xareysto, caano inta ka maalo, si iib geeyo waa fursad hal abuur. Laakiin maalgelintiisa way yara xoog badan tahay oo geela sida waxyaabahan kale uma investment yara. Waxa xiga waxay tahay waa looda. Looda geela waa ka capital yar tahay marka la aduudayo ama la xanaaneynayo ama la dhaqanayo. Marka looda inaad ayadoo yar soo iibsatid ama ayadoo mataqaanaa hadda soo qaangaarayso kale aad soo iibsatid wax macquul ah waaye. 5 neef haddii aad meel ku xirtid, xanaaneysid, calafkooda si fiican aad u siisid, waxa waaye ayada naftirkeeda aad bay ku kaafinaysaa. Calaa neefna waxaa laga yaabaa almost inaad maalinkii 10 litir aad ka heshid. Marka 5 neef waa 50 litir. Magaalada wuxuu ku joogo ku dhufso. Waa arki kartaa marka faa'iidada aad ka rajeynaysid inaad xoolo dhaqato, khaasatan looda. Dabcan sidoo kale hilbaheeda ayaa laga ganacsan karaa oo inaad qasho waa iibin kartaa. Waa haddii baahidaas iyo markaas fursadaas meelay ka banaan tahay aad heli kartid oo ku habboon. Waxaa noo xiga ariga dhowr marna waan ka soo hadalnay. Isagana sidoo kale caanihiisu waa la isticmaalaa. Dad aad u danaya ayaa jiro oo carruurta siisto, waayeelada siisto. Dabcan kulley xoolaha inta ay kala yihiinba nooc kasta iyo faa'iido gooni ayuu leeyahay. Marka wixii si oo natural loo yaqaano oo dadku yaqaanaan marka laga soo tago wixii dheeriya dhaqaatiirta inta weydiisid caanaha looda, caanaha ariga, caanaha geela maxay ku kala fiican yihiin, maxaa laga helaa faa'iidaha, maxaa fitamiina, waxaa soo weydiin kartaa si aad naftirkaaga cilmi uu kugu kordho. Sidoo kale ariga caanaha marka laga soo tago inaad hilbihiisa aad ka ganacsato ayadana waa albaab furan haddii ay heli karto suuq ku habboon oo aad kaga ganacsato. Isla sidoo kale haddaan anagoo ariga ku jirno intaan ka bixin, waxaa nagu soo fool leh hadduu Ilaahna gaarsiiyo Ciidul Adxa ama Ciidi Carafo. Ciidaasna waa ciidda hilbaha oo xoolaha aadka loo qasho. Marka haddii aad maanta wax un dhigaal ah haysato ama keed yar oo meel aad ku yaalo ama heli karto, waa samayn kartaa inaad meelaha fogfog inta aadid ama dad u dirsatid neef aad dhaqaaleyn karto ilaa iyo bil iyo barka iyo 2 bil ay ka dhiman ciid oo kale aad xoolahaasaytii calaf fiican aad siisid si aad biro dhaqaale fiican ugu samayso. Hadda baadiyaha ama meelaha fogfog waa laga heli karaa xoolo beec jaban.
waxaa kaloo meeshan ku jiro iyadana kalluunka oo kale. Kalluunka waa badda, beriga waa kasoo hadalnay. Badda isagana waa fursad ayaa ka banaan, kalluunka joogo, argoosataa joogto, bahasha quwada la yiraaha ku jirto, waxyaabo fara badanaa jiro oo badda laga helo, seafood loo yaqaano. Marka seafoodkaas isagana dee wuxuu u baahan yahay in laga faa'iidaysto, maskax fiican loo isticmaalo. marka haddii la heli karo ama aad heli kartaan ashkhaas isku tagtay ama shakhsiyaad, hadda maxjarkan oo kale intaad furatid, ama haddii maxjarkan weyn aadan ka gaarin, itaalkaaga uusan dhamayn, adiga cabirka waxaan kasoo qaadaynaa oo dhulkii hooyo 2 boos oo mataqaanaa binti bar binti ah. Adi koronto bardiyeesha maa la dhahaa umalaynaa. 2 boos oo binti haddaad isku furatid meel magaalada ka baxsan, qiimo jaban lagu heli karaa, ama kilo ama iib, inaad xoolahaaga aad kusii daysatid, ku dhaqo arigaaga, ku dhaqo mataqaanaa digaagaaga, waa lo-daada dhinac ka dhigo, wax soo saar fiican oo la hubo oo la taaban kara ayaadna ka samaynaysaa. Marka mar walba waxaan idin leeyahay tabcadaatanaada, haddii la tabcado aad baa loo tanaadi doonaa. Waa laga maarmi doonaa walaalow wax iisoo tuur, waa laga maarmi doonaa walaalow shaqo ii sheeg, waa laga maarmi doonaa waxaan qabto ma hayo iyo waxaan sameeyo. Marka hadduu Ilaahay qadaro, waxaan leeyahay dhalinyarada soo koraysa, qaarkood jaamacadaha ka soo baxay ee waxba haynin, ee ku fikiraya inay tahriibaan, inay waxyaabo kaloo fiicnan ay sameeyaan, halka qaarkoodna laga yaababa in maxaan ku dhahaye muqaadaraad iyo adduunyo kale oo fiicnan ay galaan, mustaqbalkoodii uu lumo, wadadii saxda ay kala weecdaan oo wado kale oo qaldan ay maraan. Intayan dhicin, ha loo soo jeesto wax soo saarka dalka. Digaaga waa nambarka ugu yar iyo shaqada ugu yar oo aad qaban karto. Digaag maanta 50 digaag hal mar waa soo iibsan kartaa oo waaweyn oo wax dhalaya, laakiin waxaa kaga qurux badan digaaga aan hore usoo sheegnay inaad raadsatid ayagoo yaryar aad soo barbaarisid, calafkooda iyo nadaafadooda iyo deegaankooda aad ka shaqaysid, kugu filan shaqadaas wax walba usoo kalahdo. Haddaad rabto gurigaaga qayb ka mid aad ka dhigan kartaa. Dhowr bilood kadib ukuma ayay ku bilaabayaan, ukumahaasoo ay noqon doono kuwa aad daily u guratid. Adoo hilbahooda u baahan, ukumahooda ayaa kugu filan oo noloshaada dabiri kara, bishiina aad ka samayn kartaa $2,000. Marka meesha anaga aan ka fikirayno waxyaabo fog oo kharash iyo waqti badan iyo aqoon iyo u baahan, hoostaada ayay taalaa. Kaliya waxaa kugu filan inaad tagtid waxyaabaha caafimaadkooda iyo nafaqadooda ku saabsan chemist pharmacy-ga lagu iibiyo daawada xoolaha, inaad kala sheekeysatid, ama dhaqaatiirta xoolaha haddii meelaha aad ka heli kartid consult inay ku siiyaan qaabka loo daaweeyo iyo qaabka biyaha loogu daro daawada iyo nafaqada, qaabka raashinka loogu daro markay cunayaan calafkooda. Wabilaahi tawfiiq. Digaaga caafimaad qabo, qurux badan, tayo leh, miisaankiisu fiican yahay, ukumo wanaagsan ku dhalaya ayaad soo saari kartaa. Marka mar walba oo aan tala gudbinayno, taladeena waxaan ku daraynaa tabcadaatanaada, maxaa yeelay adduunyada maanta waxaa la iskugu faanaa wax soo saarka. Marka annaga maadaama hadda waddankeena warshado uusan lahayn, ganacsato fiican oo iimaan leh oo dadka dhiirigelisa aysan joogin, labadii wax lagu tuhmaayeen ay yihiin yacni dad ka shaqeeya in adeer iyo yaa ii dhow iyo siidigay aabe iyo waxaas dadka fikiraya ay yihiin, dadkuna wax ma wada haystaan. Soomaali wax ma wada haysato, in yar baa adduunyada Ilaahay u kufiyey, intii haysatana inta badan 99% iyo qababac dadka xaasidiin bay noqdeen, wax ma dhiibaan, wax ma bixiyaan, aakhiro kama fikiraan, adduunka unbaa wacad. Inkastoo daarahan dhaadheer iyo howlahan lagu jiro mar un laga tegi doono,
qaarkood oo badanna ay ka tageenba adduunka ayagoo xataa aanan hal habeen seexan daarihii ay dhiseen. Marka dhalinyarada qiimaha badan ee Soomaaliyeed ee sharafta badan oo aan markasta u haysta inay yihiin hoggaanka Geeska Afrika, guusha iyo dhaqaalaha Geeska Afrika, inay cududooda banaanka keenaan, isku tashadaan, is aaminaan, si qurux badan leh wax soo saarkooda u xoojiyaan. Waxaan rabaa hadalkayga inaan kusoo koobo, aan kusoo gabagabeeyo. Maalin dhaweyd waxaan arkayay dowladda Kenya oo shacabkeeda ka ganacsada qaadka oo beeraha leh. Madaxweynuhu intuu u tagay uu leeyahay waxaan la hadlay madaxweynaha Soomaaliya, madaxweynaha Jubbaland, madaxweynaha Somaliland. Waxaan kala hadlay in qaadkiina ay ku gataan sicir sare, macnaha qiimo sare. Laakiin annaga ma hayno madaxweyne inta idin imaado idin dhahaya war Kenya qaadkay saas aan ka yeelnay, bal idinkana maxaa haystaan oo Kenya idinkaga iibinaa. Marka maadaama dowlad la'aan iyo duruufo badan ay iska jiraan, haddana waxaa fiicnaan lahayd in wax cagsi la samayn karo. Markii ayaga qaad noo keenayaan, annagana inaan khudaarta iyo kalluunka iyo waxaas wixii macquul ah loo soo dhoofiyo, suuq furan la sameeyo. Marka intaasna waxaa lagu gaari doonaa kuley sida dhalinyarada ay isugu tashadaan, ay isugu dhiiradaan oo ay muruqooda ay u maalaan. Marka waxaan leenahay mangaabka taladiisu waa maqana jooge, waanada maqaato wuu labalabeeyaa. Marka guntii iyo gunaanudkii tabcadaha tanaada hore ha loo socdo, dhulka hala fasho, xoolaha hala dhaqdo, ciddii badda geli karta badda ha gasho, kalluunka iyo maxaan ku dhahay kheyraadkaas Ilaahay dhex dhiga kala soo baxdo. Aad iyo aad waa mahadsantihiin. Channelkana hana laga qurxiyo. Marka hawshu waa dhankiina.